بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله aad baan ku salaamayaa adiga iyo ummadda islaamka ah inta magacayga iyo muuqayga isla taqaana iyo inta aan isla aqoon magacayga iyo muuqayga mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh riwaayadda waxa la yiraahdaa magaceeda jacaylkii lagu raagay runtii buu ku dambeeyay riwaayadaasi waxa ay aan ugu talagalnay in ay socoto muddo 4 saacadood ah 14 fanaaniinta kamida oo isugu jira majaajaliste iyo heesaah ayaa matalaya haddii ilaahay raalli ka noqdo riwaayadda qaybo badan bay ka hadlaysaa wacyigelin xagga waxbarashada oo ay ka hadlaysaa wacyigelin xagga dhaqanka ah oo in dadkii dhaqankii ay ka tageen oo dhaqankii lagu soo noqdo way ka hadlaysaa haddii alla idankeeda leeyahay jacayl kama badhna qosol laftiisa kama badhna oo dee riwaayad waa qosol riwaayaddu marka hore waxa ay ka ambaqaadaysaa reer guud ahaan la yidhaaho 3 qof ah in la yiraahdo gaasira iyo aabaheedo la guuleed iyo hooyadeedo la guntan saddexdaasi waa madaxa riwaayadda oo waa inantu waa xidigada riwaayadda jirin ninka la yiraahdo waa xidiga oo isna wuxuu matalayaa arday marka inantaasi iyadoo guriga ka maqan baa aabaheedu manaya wadada wuxuu oranaya baxaad ku maqan wuxuu oranaya iskuul cusub la furayay ayaan xafladiisa ka qayb galay xaflad baan ku maqnaa marka waxaan doonay iskuulka inaad ugu darto adigu halkaas ay sheekadu ka ambaqaadaysaa warkii wuxuu socdo inantii iskuulka waa lagu darayaa ardayd bay noqonaysaa inankaa jiri oo ka mid ah ardayda iskuulka ayay inantii jacayl dhex marayaa marka halkaasa horta marka hore xidiga iyo xidigada riwaayaddu halkaasay ka wada jaan qaadayaan geesta kale waxaa jira 3 hablood oo saaxiibo ah 3 hablood oo saaxiibada ah waa hablo iska dhalinyaro ah oo dee magaalada jooga oo aan ceeb lahayn oo laakiin guurkii ka yara raagay oo aan hore loo guursan dabadna way isu imanayaan 3 hablood shir bay galayaan mid baa hadalka bilaabaysa waxaan nagayaankii waa aragtaan oo raggii guur laga waayay intaynaan ku guumoobin suuqana waa la galay go'aan maynu samayno ta kala oranaysa guurku waa min Allah oo gacmaha ruux kuma haystee ilaah bayna gargaar oo cidun bayna guursanay aan guriga iska joogno ta saddexaad baa oranaysa oradin isdhaaftay ana waan arkayaa inaan suuqa abraarto alleelkiis cunayso elfiskoys timaayo indhaas hartay muraado albaabkii walba taagan oo jacaylkeeda cadeeyay oo nolosheeda adkaysay gayaankii arki waayay guriga ma ugu imaan dee waa maya oo haddii aan isafufo indhaas haro goweyn sidee la arkaya maxaa lagu ogaa naaqalaynu kurayno raggaan ku arbaabno marka halkaasa sheekadaasi ay hablaha kaga burburaysaa 2 hablood waxay ku talagalayaan inay iyagu magaalada talaabada yar bedelaan oo dhaqankii ay ka yartagaan inana iyadu dhaqankii bay ku hadhaysaa dabeedna inantaa dhaqankii ku hadhay inaan kuuliya baa guursanaya guri bay iska degayaan diriceeda iska meeranaysaa oo iska cadarsanaysaa oo iska unsanaysaa ilaahay bay irsaaqadeeda weydiisanaysaa ninkeeda xalaasha bay guursatay 2 hablood kale dhaqankeena aynu hidaha iyo dhaqanka u lahayn way ka gudbayaan dabeedna hablaha mid kamid ah adigu yar murkacanaysa inantaa murkactay hees bay qaadaysaa dumar urursanaantii waxa looga ogaan jiray aqalkiyo rugtoodii anaa awday samaho afar qaaday socodkee maxay oo hintu itari inantii uur laba heesta markaa qaadaysa dhanka kale haddaynu u baydhno inanka iyo inanta aadka isu jecel odaygii wuxuu ogaanayaa inanta dhalay gaasira in inan kale ay jecel yihiin dabeedna inantii iskuulkii buu ka saarayaa inankii markuu inantii iskuulkii ka waayo xagga maskaxdu yar noqonayaa wuxuu noqonayaa nin nolosha ka yar dhacay waxbarashadii buu ka tegayaa habsankiisa badanaya aakhir iskuulkii buu ka baxayaa wuxuu noqonayaa nin waalan oo xanuunsanaya nin duur gala buu noqonayaa timo artificial buu xidhanayaa bootar buu marsanayaa adigu nin waalan buu bedelaya dabeedna ayda ayuu u baxayaa wuxuu la saaxiibay libaaxa uu la saaxiibay cagadeerida biyaha uu ku sitay iyo bac yar uu mariyay ku sito isagoo deenu waalana ayuu libaaxa saaraya libaaxa u qaadaya arka agtiisu ka heesay isagoo waalan halaq baalkan halaq leeyahay ama maska sida umada qaardeed cidba kulay hadal way u taqaanaa maskaas uu la saaxiibaya maska iyo arkaas uu la jooga hees buu markaa qaadaya aadam hankiisa iyo hiigiisa kuma qaban inuu halaq la seexdo la hargala dugaaga ee haamaha biyaha iyo huga waxaan ku qaataa hooliflow libaaxo hayinkayga waa ar hees noocaasa ayuu qaadayaa marka hore ee inanka inantu ay isbaranayaan ee la soo galayo kulay dumarku de markay inan isbartaan hadii jeer way sare macaaneen oo ogta macaanayntu meesha kama badna marka hees bay wada qaadayaan talantaaliya sida tahay jid baaliyo dooxadii jaleelo jir intuu saq dhexmaray ku jarmaaday mayo biyihina jiifan ama jeex madheer loo jilabkiyo jadeerkii isku soo jabeen oo intay joog qof dhaafeen lagu foofri jaawoon rigihiina jiifan jeedaala diimada wadi jiidataay oo naftu way ku jabato ka jeesan weyday aynu jabad yagleele waxba hay jikaarnay joogdhow reeyada
hees noocaasa ay oo talantaaliya ay wada qaadeen inay afar bay tahay sida aan u maleynaya 2 iyo 2 adigu ruwaada from A to Z siday u dhan tahay wax sheeka ay kuma jiraan waa majaajilo iyo heeso heesi waxbarashada ku jira dugsiga waxbarashada waa daryeelka nolosha ruuxan darsiba dhigan waa sida dab joogta iyo xoolaha dareere aabahooyo yaanta adiga dhaafina iskuulaadka ugu dar hees noocaas ay la ku jirta wacyigelin fara badan ayaa runtii horta ruwaadan ku jirta waxa uu looga jeedaa dhamaanteed dadku iyaga magac u bixiya waad ogeydo bariga hore ee Soomaalidii hore ee tiyaataradu jireen ee heesuu jireen fanaaniintu isku xidhnayd ee ay ruwaadaha 7-yeedii 8-yeedii ma adigu ma jirin ruwaada abwaanku soo bandhigi jiray dadku iyaga magac u bixin jiray oo iyaga tafsiiri jiray oo iyaga ka shaqayn jiray tanati kama tagano kolley ma bandhe laakiin anigu dadkan u daynaya feedbacka inay ka soo sheekeeyaan aad wacyigelin baa ku jirta goorma bulshada ay daawanaysa aad u sheegi kartaa in ruwaadaas wallahi niyow horta iminka dee suugaanta way isbedeshay waxay noqdeen shortcut wax yar oo kooban oo YouTube-ka la soo dhigo ama Facebook-ka la soo dhigo technology waa horumaray social media iminka gudihiisa lagu kala shaqaystaaba laakiin ruwaadani uma baahna social media inay gasho waayo 4 saacadood baan ku talagalay inay socoto 4 saacadood majaajileedu waa xidhiidh heesaheedu waa xidhiidh sheekadeedu waa xidhiidh qisasku waa xidhiidh marka kulli fanaaniin badanna waanu iska aragnay abwaaniin badanna waanu iska aragnay oo dee anigu abwaan mihii 4 midlaan haye raggii dee baasha xaqa u lahaa ayaanu dee iska aragnay oo baasha tigtaa la saaray anigu aan faaninayn haddana waa la ansixiyey dee tiyaatar baa la dhisayaa dalka tiyaatar baa loo dhisayaa tiyaatarka malaa'imka waa dhowdhow yahay waxa aan jeclahay haddii intaa ilaahay mawdka iyo aakhiro oo aan dee intaa aan ciidda hoos marin ruwaada inaan kusoo bandhigo tiyaatar ay ku socoto si caadi ay uga socoto oo dee hal mar la wada daawado